السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشرة عشر كمدة امتحانينها weli waxaan ku wali jirnaa casharkii ahaa professional writing skills ama qaabka professionalka wax loo qoro amba skillsyada kala duwan ee professionalka marka skillska waxaan kusoo qaadanaynaa amba qaybtan professionalka waxaan kusoo qaadanaynaa qaabka invoice-ka lagu shaqeeyo inagoo hore qornay invoice-ka qaabka loo qoro iyo qaabka invoice-ka siduu uga caawinayo in haddii company tahay iyo hadday baqaar tahay iyo hadday meelo kale oo goobo oo shaqo tahay marka iminka halkan waxaa ka muuqda company namekii addresskii city amba state hadduu gobol yahay iyo hadduu caasimad companygaasi ka dhisan yahay phone numberkii date and timekii halkan ka muuqda oo wada aragtaan bill to oo xagga sare ku qoran oo noqonaysa name company namekii marka waxaanu ka shaqayn doonaa qaabka excel lagu shaqaynayo amba qaabka professionalka ee lagu shaqaynayo warqadan invoice-ka markaad invoice qorayso saas oo kale aad samaysanaysaa marka hore markaad soo samaysato qaabka haddaba lagu shaqaynayo ayaan ku shaqayn doonaa markaad qorayso ku shaqaynayso halkan waxa yaalla waxa weeyaan waa name magacaynu qori doonaa marka magacaynu qorina waxa weeyaan tusaale ahaan qofkii alaab naga soo dalbaday ama qof wax naga soo dalbaday ayaynu warqad invoice u jari doonaa marka u jarana tusaale ahaan waxa bay naga soo dalbaday ninkii magaciisa la yiraahdo cabdillaahi yuusuf axmed magaciisa waynu qornay company namekana waxaan ka dhignay alfetxi trading company waynu qornay magacii companygana hargeysa somaliland buu ku yaalaa phone numberkiina waxaan qornay 06335544 phone numberkiina waynu qornay phone numberkiina qornay emailkiina waynu qornay waxaan nidhi alfetxi 210@gmail.com waynaga qornay emailkiina iminka markaynu informationkeennii saa u dhammaystirano amba informationkii saa u dhammaystirano aynu saa halkaa ugu qorno iminka marka waynu qornay informationkii waynu qornay oo waynaga dhammaystiranay informationkii marka koowaad waxaad qoraysaa markaad qorayso namekii waan qornay company namekiina waan qornay sidoo kale waxaan qornay kale haddii waxaan qornoo kale caasimadii waxaan kale qornay hadduu street iyo meeshu ku yaallo sidoo kale waxaan qornay waxa weeyaan emailkii waanu qornay phone numberkii waanu qornay stateki waanu qornay city waanu qornay companygii waanu qornay tusaalahaan waxaanu qornay waxa weeyaan namekii waanu gelinay waxna ka nihi cabdillaahi yuusuf ayna kasoo dalbaday alaabtan company namekina waxa ka dhignay alfetxi trading company city caasimadii waanu qornay hargeysa somaliland phone numberkiina waanu qornay waxaan ka dhignay lambarada email amba addresskiina waxaan ka dhignay waanu qornay kadib markaynu taa qorno waxaynu raacin doonaa waxa weeyaan alaabtii halkan waxa yaalla alaabta item 1 iyo productkii iyo pricekii iyo inta xabeeyin iyo amountigii marka waxaanu qori doonaa tusaale ahaan waxaanu qornay 5 xabo oo tusaale ahaan waxaan qornay saliida shirkaamaha amba saliida caagadaha waaweyn caagadaha waaweyn calaa xabo waxaynu siinaynay waxa weeyaan kasoo qaad $15 calaa xabo $15 bayn siinay waxaanu naga dalbaday 4 xabo
totalkii marka muxuu noqonayaa amountiga wuxuu noqonayaa equal bayn taban doonaa 15 lagu dhuftay 4 xabo lagu dhuftay marka waa $60 waxaan qornay caana liidona waxaan qornay على حبة waxaan siinaynay $12 على حبة $12 baan siinaynay wuxuu naga dalbaday 8 xabo totalka marka inoo soo saaraya marka total inoo soo saarayo laakiin si automatic uu totalka inoo soo saaro in excel ku waxaanu click siin doonaa waxa weeyaan si uu automatic imika tusaalahaan mar labaad isku dhufanay noqonaysa markaas si aan mar labaad isku dhufan waxaanu tagaynaa marka hore halka hadda imika taabano aynu soo jiidno halka ku joojino waa wada $0 marka waxaanu click garayn doonaa waxaan isku dhufashadeeni ama total amount-geeni kadib halka hore if bin ku qori doonaa qaws bin marka furi doonaa markaan qaws furno waxaanu click garayn doonaa quantity inta xabayin markaan click garayno ayaa waxaan samayn doonaa calaamadda ka weyn ayaan qori doonaa markaan calaamadda ka weyn qorno ayaan 0 qori doonaa dadna way qori doonaa halkan hoose iman doona xagga kale ayaan formulada inta xaggeeda hoose dambe ayaan iman doonaa kadib waxaan ku qori doonaa iyadana dot laba rotation marka waxaan ku xiri doonaa waxa weeyaan qowska waxaan xiri doonaa enter baan siin doonaa marka enter siina waxaan ku soo jeedi doonaa calaamadda lacagteeni marka way soo disiiro garanaysaa marka imika automatic isku gelinaya automatic ayuu isku xisaabinaya waxaan qori doonaa marka imika halkeen ku noqon doonaa caana liidoogeeni ku noqon doonaa marka waxaan tagi doonaa $12 afar wax naga dalbaday 8 xabo totalka muxuu noqday 96 marka imika automatic ay isku gelinaya waxa isku gelinaya waxaanu tusaale dalbanay bariis baynu qornay على حبة waxaanu siinaynayba tusaalahaan على حبة waxaanu siinaynay $18 wuxuu naga dalbaday 8 shub 9 shub badhe 9 shub naga dalbaday waxaan noqotay $162 imika automatic isku gelinay waxaanu dalbanay hadaynu alaab kale inuu qorno dalbaday isagu waxaad u qortaaba tide على حبة waxaanu siinaynay $5 $6 badhe wuxuu naga dalbaday 12 xabo automatic $17 marka imika automatic bi isku gelinaysaa imika xisaabtu halka markasta isku dhufan lahayd isku dhufan lahayd ma isku dhufanaysid imika haddii aan mar laba qorno waxa uu dalbaday alaabtu dalbaday ama product-gu dalbaday waxa weeyaan saabuun ayaan nidhi waxaynu u qornay على حبة waxaanu siinaynay xabadiiba waxaanu siinaynay $4 badhe waxaanu dalbaday 18 xabo totalka wuxuu noqonayaa $72 ayay noqotay waxa uu dalbaday daqiiq ayaynu qornay mar labaad daqiiqdan wuxuu dalbaday على حبة waxaanu siinaynay xabadiiba waxaanu siinaynay $13 baan siinaynay waxaanu inaga dalbaday 14 shub inaga dalbaday totalki muxuu noqonayaa marka taban $180 buu noqonayaa marka imika saasa automatic isku gelinaya warqadeeni markaan soo jarnay invoice-keeni saasa loo qoriyo invoice u jari doono marka saasaan loo qoriya item-kii baa gelinaysaa marka imika total amount-gii bayna manaa total amount-gii hadda imika nimaadno inta ku joojino total amount-gii ayaynu imanayna total amount-gii haddii ay nimaadno total amount-gii haddii aan nimaadno waxaan taabanaynaa equal sum baan qori doonaa qaws baan furanaynaa marka qaws furano waxaanu ku soo jeedi doonaa waxa weeyaan total amount-geeni kadib qaws ku xiraynaa enter baan siinaynaa marka total amount-geeni muxuu noqonayaa wuxuu noqday $644 ayuu noqday $644 buu noqday
waxaan iska xisaabin doonaa waxa weeyaan cashuurtii 8% waa mid kasta saaran equal bayn tegaynaa waxaan kali garaynaynaa $644 lagu dhuftay 8%. wuxuu noqonayaa cashuurtiina waxay noqonaysaa $51.52 cashuura. discount-kiina waynu xisaabinaynaa waxaanu kala garaynaynaa $644 lagu dhuftay 4 discount ah wuxuu discount yeelanayaa waxa weeyaan $25.72 final amount-geena ma xisaabinaynaa equal bayn taaban doonaa waxaan odhan doonaa total amount-geena oo loo geeyey cashuurtii oo loo geeyey discount-kii enter bayn sii doonaa waxaa noqonaysaa total final amount-geena wuxuu noqonayaa markaa $721.28 kadib maxaan lacag ka haynay kaba soo qaad $700 waxaan ka haynay lacag dhan oo noqonaysa $567 ayaa inoo lacag aynu ka haynay maxaa lacag ku baaqi noqonaya equal waxaan odhan doonaa 700 laga jaray wixii lacag la hayay enter bayn sii doonaa $154.28 ayaa baaqi ku noqonaysa wax lacaga marka laga shaqeynayo warqadii waynaga ma ka dhamaystirnay warqadii waynaga dhamaystirnay waxaanu qornay name-kii magaca qofka waxaanu qornay company name-kii waxaan qornay city amba state hadduu gobolkii ku yaallo amba hadduu caasimad ku yaallo waan qornay phone number-kii waynu qornay email-kiina waynu raacinay warkaa kadibna waxaanu qornay alaabtii qaabka lagu shaqeynay waynu kasoo shaqeynay oo ka alaabtaynu qornay alaabtaasaynu qornay doonayay uu dalbaday qofka macmiilkii alaabtaasuu dalbaday alaabtii uu dalbadayna waynu qornay oo waa alaabtaasuu dalbaday macmiilku kadibna waxaanu xisaabinay waxa weeyaan waxaanu ka jarnay $8 oo cashuura iyo discount aan u samaynay oo $4 ahaa iyo total amount-giina waan soo saarnay total final amount-giina waan soo saarnay iyo total amount-gii lacag waxaanu ka haynay waxa weeyaan $567 waxaanu lacag ku helnay waxa weeyaan $154.28 marka iminka warqadeena way dhamaystirantay wataa dhamaystiran haddii saasaad ku daabacaysa iminka saasaad ku daabacaysaa ood ku siinaysaa qofka xagga hoose waxa yaalla waxa weeyaan saxiixii signature-kii baa yaalla oo halkaa ka muuqda halkaas signature baa ka muuqda haddii aynu eegno warqaddu say soo baxayso waata halkaa ka muuqata saasay soo baxaysaa warqadda haddii aan soo dhaweyno warqadda markaad daabacdo noocaasay soo baxaysaa haddii aan soo dhaweyno warqaddu wataan alaabtiin qornay waata halkaa ka muuqata invoice-ka markaad jarayso markaa saasuu soo baxaya invoice-ka markaad warqadda u geynayso saasuu soo baxaya signature-ka halkaasaad ka raacinaysaa shaambadii baad ku dhufanaysaa marka shaambadiina ku dhufato signature-kana raaciso saasaad ku daabacaysaa marka invoice-ka qofkaad u jiraysay saasaa u daabacaysaa inaga u buuxbuuxinay dhammaan ay alaabtu doonayeen waata halkaa ku qoran cashuurtii baa ku qoran discount-kii baa ku qoran total amount-gii baa ku qoran final amount-gii baa ku qoran wixii lacag laga hayaa ku qoran wixii lacag lagu lahaa baa ku qoran marka warqaddu noocaasay noqonaysaa haddaa marka la qorayo invoice-ka marka la qorayo way kala duwan yihiin iminka warqaddu waa tan haddii aan mar laba xaggan ka eegno warqadda invoice-kan soo qornay wataa invoice-ka markaad qorayso saasay noqonaysaa markaad warqad invoice qorayso qaabka looga shaqeynayaa ee professional-ka waynu ka shaqeynay oo waxaanu kaga shaqeynay waxa weeyaan excel-kii baan kaga shaqeynay markaad qorayso aad ka shaqeynayso aad bay fudud tahay qof kastana saas umaad ku qoraysaa ood hadhow uga jaraysaa marka cashirkan halkaas kusoo koobaynaa intaasaynu